السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام يا ولد يا دمانتين. waxaan joogaa magaalada leeyahay Hyderabad oo ka tirsan wadanka India. Fariintan waxay ugu xasabtay waxaan hortaaganahay isbitaal leeyahay Media Coba. Isbitaal weyn ah oo aan ku dhex wareegay. runtii waxaan aad looga calool xumaado ayaan ku arkay isbitaalkan oo ah tirada dadka Soomaaliyeed tirada badan xad dhaafka isbitaalkan jooga. oo ay ka muuqato baahida dhabta ah ee waddankeena ka jirta qaybtan hadda aan hortaaganahay waa qaybta kansarka oo runtii aad uga calool xumaanayso ummadda Soomaaliyeed meesha dhooban mararka qaarkood dadka receptionka jooga waxa ay hindida waxa ka badan kuwa Soomaalida meelaha lagu qaato dawadan muxuu ahaayay loo qaato kansarka meelaha lagu qaato marka qaarkood waxa ka badan dadka Soomaalida ah ka badan dadka hindida ah waana wax runtii aad iyo aad muruga u laweeyay waxa la mid ah farmashiyada marka tagto shaybaadhada marka tagto habeen dhawadan tagay farmashi weyn oo dawooyin waxaan ka iibinayay waxa aan tiriyay dadka marka meesha aan kula kulmay 250 qof baa taagnaa 730 qof baa Soomaali ah oo macnaheedu 70% wax ka badan ayaa Soomaali ah halka magaaladan dadka ku nooli ay yihiin almost 7 milyan Soomaalida ka soo qaad 10,000 inay yihiin macna yani nisbadu marka 10,000 7 milyan u qaybiso qiyaasta halkii qof Soomaali markuu meel taagan yahay waa in 700 oo qof oo hindi ay taagan yihiin balka waran markay bilcagsi isu bedesho oo yani waxa weeye 70% ay wax ka badan Soomaali noqdaan dadka farmasiga taagan 30% ay noqdaan hindidii waddanka iska leh ay noqdaan saadirteed waxaan kula talinayaa walaalaha dhaqaalaha Ilaahay siiyay ummadda in loo dhiso loona furo dhakhtar weyn oo baahiyahooda daboola xanuunada ugu badan halkan dadku u yimaadaan waa dhakhtarku dhanaan ku wareegay kansarka kamida waxa kamida dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaad aanu si dabiici ah u siinin oo iyaguna awlaad halkan in loo farsameeyo oo loo beero u yimaada oo aad u tiro badan tiradu runtii aan yarayn waxa wax laga xumaada ayna marka qaarkood arkayso dad aad u jilcisan oo waalida oo aan afki garanaynin waddanka laga hadlayay afafka international kana waxba ka garanaynin qaar dhaqaalihii ka go'ay runtii waa wax murugale waxa meeshan ka jira qofka Ilaahay caafimaadiyana qofkii dul yimi uu ku darrafaaday dhaqaalihiina waa ku burburay kii dhintayna meel ehelkii ka fog ayaa lagu aasay saadarteed maamulada dawladda federaalka hadda wax maqlayaan siyaasiyiintu ay wax kala garanayaan dadka dhaqaalaha haysta intaba Ilaahay ka cabsadaan ummadda dhakhtar weyn hal loogu yotoosado ama caasimadda hal laga dhiso ama meel kale ha laga sameeyo arrinka markaan leeyahay u gafi maayo dhaqaatiirteena waddankii joogta iyo dhakhtarradeena runtii dadaal badan bixinaya iyagoo imkaaniyaadkoodu u yar yahay waa dadaalayaan laakiin haddana baahidu isma qariso meeshan baahi weyn baa ka taagan dadka xanuunsanaya Soomaalida ah iyo muslimka kaleba Ilaahay caafiyo dana badan bay meelahan u joogaan Ilaahay danahooda ha u hirgeliyo waxaynu isku haysanaa waxaan macno badan lahayn amnigeena gacan kuma hayno caafimaadkeena gacan kuma hayno waxbarashadii awlaadeena gacan kuma hayno bal waddankeena dhan ma gacan kuma hayno hal la baraarugo oo fadhiga laga kaco aqliyadeena aan bedelno mentalitygeena wax ka bedelno oo qabyaaladana aan yarayno deynmeena aynu yarayno dadka xanuunsan Ilaahay caafiyo faraj Ilaahay noo furo beledkan Ilaahay noo hagaajiyo aad baa u salaamantii. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.